وحوليه عليه الصلاة والسلام قفك الدلي قردر لغو دلي حق در لغو دلي maalinta qiyaamada ayuu wax uu iimaanaya asagoo ku dhegan qofkii dilay asagoo kalarka ku dhegan madaxana haya markaas uu leeyahay ya rab hada qatalani midkan baa rabbi uu idilay weydii waxa uu ugu dilay markaas baa la kala saaraya wa awwalu ma yuqda yawm alqiyamati bayna an-nas ad-dima soo rasuulku yiri alayhi salatu wassalam waxa ugu horeeyo maalinta qiyaamada gabadha muslimada waa inay ilaalisaa markay baxayso aadaabta islaamka waa inay ilaalisaa وين يكون بحذا إذن وين يكون بحذا وين إذن كون بحذا قبل الربطين يجوكتوي ما مد الربطين ورغد هذه لسي وحاربت زمان وبحيا هديت هذا مد أصول الله بلود بجوكس ما مد وقت يرلو تلقى ليو مد إنك معناها فاكتمركو عريسية هي تحريش بيكو سميسة الباب كان فرفور ميل هذا ضوفر درجة فرفور ميل فرق تسد كلا قيبي وكلا جه هذا أدوه سيد كان نقطي به شجع القبلية بدل العقيدة قبيلة حوجي وسراء قاد أيضا هالنقطة عقيدة يا إيمان للرمايو بدل كي دين إسلام كأنه بيجو مرخاتبة ديجتهم وحي جار تمرك ننكو إنه يرهدو قبيل كيجان قد ما نيا إن ومستر قوة وأنا عبادة قبلها وأنا عقيدة قبل كل شيء هذا با وقتنا وانا قالوا مايا كوانا وانا قد مانايا وحينو قارينا ملء انت سيدا بانددي اينو كلا شفك حسنين ومدنا بري منا قلبين آذي من الأركاب ما يعلوك بختنا وليبا مساجد قوبها عامكا وحاسارا واردية شوكتا باصارا مساجد واوين ama garow ku yaala ama boosaaso ku yaala magaalooyinka weyn ku yaalaay waardi joogtaa baa saaran oo 24 saac salaada marka la tukanayo rag baan iyagu salaada tukanayno waardi ku jira oo safka hore taagan oo qorigoodi iyo bastooladooda ya nuur ya nuur ya muhkam ya tanzil li muhammad an jibril من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مركز التقوى مقالة أوهوس ودن كدنمارك وحاول كسر دوينيا مؤتمر كي صدحي لاتناد أورورد اسكندنافيانكا مؤتمر كشعار كي سجود وحاول هي سنة كان الموقظ من الفتن مؤتمرك waxaan ku jirnaa maalintiisii saddexaad iyo muxaadaradii labaad insha Allah taala hadda aynu gali doono muxaadaradu waxay ku saabsan tahay arin aad moodayso inaynu ku ibtilaysanahay ayaamahan dambe waxa la yiraahdaa fitnatu almaal fitnada maalka runaantii dadku aad mooday inay ku ibtilaysan yihiin cibaadaadkii loo lumiyay waxyaalo badan maaragtay laga tagay si maal iyo adduunyo loo helo بل أرنتاس يا شيخنا الفاضل شيخ عثمان علي فارح وإنوفا فاهين دونا جزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع أي علماء سوجيديين إن كلمة لغا سوجيديو فتنة المال وحكمد يهي إن مالك لغو فتنوبو إن مالك قفكو وكن نقض قف أيان درن إن مالك قفكو وكسموبو وكدين بيلو إنو كدد نمبيلو
waxay ka mid yihiin musiibooyin fara badan iyo ibtilaa'aad fara badan iyo fitnooyin kala duwan oo jira. marka aan insha allahu tacaala arrintan ka hadlayno qodobada ugu muhiimsan oo aan taaban doonnaahu waa sidan. marka koowaad insha allahu tacaala waxaan isku dayaa in aan caddeeyo waxa laga wado fitnatulmaal. waxaan ku xiji doonaa sababta kaliftay maalku shay lagu noqdo qof ayaan daran, lagu fitnoobo, lagu sumoobo, sababta uu u yahay. waxaan insha allahu sheegi doonaa calaamadaha lagu garto qofku inuu maalkii ku fitnoobay oo ku sumoobay oo ku biirooday oo dhibaato ay ka soo gaartay. waxaan ku xiji doonnaa haddii ilaahay idmo sidee looga gaashaantaa. waxaan ku soo gabangabay doonaa haddii ilaahay idmo tusaalayaal qur'aanku iyo qisooyin uu uga hadlay maalka. kuwaas waa qodobada ugu muhiimsan oo insha allahu tacaala ku jiri doona kelimadeyda. inta aadan wax gelin ama aadan wax aqrin, marka hore waa inaad fahamtaa waxa horta la rabo in laga hadlo. adoon taas fahmin haddii qofku uu gudaha wixii u galo, waxaa laga yaabaa in uusan dantii uu lahaa uusan si sahlan ku gaarin. maadaama ereygu luqad carbeed af carbeed uu yahay fitnatulmaal, nin ka mida odayaashii iyo duqaydii luqadda oo la yihaa alraagib alasfahaani oo dadka luqadda wax ka qoray ka mida, ayaa wuxuu yidhi luqad ahaan ereygan fitno wuxuu jiriddiisu ay tahay oo uu ka soo jeedaa erey la yidhaha alfatn oo laga wado in dahabka la saaro dabka oo dabka la geliyo si loo ogaado dahabka midkiisa fiican iyo midka aan fiicnayn. markii dahabkii la dhalaaliyo ayaa waxaa soo baxaa waxa runta oo waxaanu u ahaa inuu dahab uu ka ahaa iyo inuu dahab ahaa. markaas la kululeeyo oo la dhalaaliyo, markaasaa la kala ogaana. fitnatulmaalka marka ujeeddada marka aan u soo dhoweeyo qofka fahmidda waxay tahay waa waxyaabaha qofku markuu helo ama uu waayo ay soo baxdo qofkii ay ahayd. qofkaanu waxa uu ahaa oo runtaa markaasi soo baxdaa. tusaale ahaan qofku waxaa laga yaabaa inuu isku muuji jiray qof deeqsiya, qof fiican, qof ilaahay ku xiran, qof cibaadada jecel. muuqaalkiisa kore inuu sidaas ahayaa dhici karta. maalinta dambe waxaa dhici karta inuu lacag iyo maal gacanta ku dhigo. mar alla markuu dhaqaalahaas gacanta ku dhigo waxaa soo baxa qofkii runta ahaa oo uu ahaa. ninkii masaajidku ka go'ay awal nin ahlu khayr oo ahaa jiray oo fiican, mar alla markii dhaqaale idin dhex maraan wax alla wixii gala ciduna kama soo saari karto, qofkii qof kaluu noqonaaba. marka xaaladdaas la gaaro waxaa soo baxa qofkaanu wixii runta ahaa oo uu ahaa. marka marar badan muuqaalka kore waa lagu qaldamaa. waad aragteen haddii wiil iyo gabar rabaan inay isguursadaan, qof walbaaba dhar fiican uu xiranaa, luqad jilicsan oo dhegaha u roon, maskaxda u roon ayuu isticmaalaa, waa isi soo barafuuninaa. qof marka muuqaalkiisuna aad ka dhargaydo, maqalkiisana aad ka dhargaydo ayuu yahay. labadii qofood qaabkaas iskula hadlayaan.
laakiin marka la isguursado oo dadkii guri degaan qofku waxa uu ahay oo runtaa ayaa soo baxaa sababtoo ah sidii uma labisnaa kartid warkii quruxda badnaa maalin walba kuma hadli kartid waxaanu awalba waxay ahaayeen wax la soo maaragtay dhoobdhoobay oo la soo istrukeeyey oo la ilaalinayay oo erayada la dooranayay laakiin guriga marka la isugu tago waxaa laga yaabaa ninkii inuu dhurwaay soo baxo inuu dhurwaay noqdaa dhici karta ninkii noocaas ahaa marka fitnada waxaa laga wadaa shay markii uu qofka u yimaado soo saara qofkan run ahaantiisii wixii runta ahaa oo qofkan uu ahaa shayga soo saara marka fitnada luqad ahaan waxay yiraahdeen waa al-ibtilaa wal-imtixaan wal-ikhtibaar qofkii in la tijaabiyo oo la testigareeyo qofkaanu yuu yahay muxuu yahay aakhirkii dambe culimmadu darajooyin ay luqad ahaan soo marmartay markii dambe wax kasta oo la dhibsado oo aan fiicnayn ayaa waxaa luqadda af carabiga loo isticmaalay fitna sida tusaale ahaan dilkoo kale gaalnimadii oo kale qofkii in la gubo in la cadaabo qur'aanka marka dhowr iyo 10 macne eragaasu isagoo leh ayuu qur'aanka ku jiraa oo mar walbaba meesha uu ku jiro macnaheeda waxaa lagu fahmaa sida warku u socdo mar waa cadaab mar waa tusaalan dil mar waa noocan ujeedooyin kala duwan ay leedahay laakiin iyaga dhan hal meel ayay isugu soo biyo shubanayaan adduunyada wax alla waxa dhibaato ka dhaco dhan culimmadu laba eray ayay ku soo aruuriyeen waxaa jiray yidhaahdeen fitna oo xagga shahwada ah iyo fitno xagga shubhada ah shahwo iyo shubha luqadda af carabiga maxay kala yihiin shahwada waxaa laga wadaa waxyaabaha lagu fitnoobo oo koowaad waa shahawaadka waxaa la yidhaah waxyaabo diinta ka soo horjeeda naftuna ay jeceshahay qamri lacab ha noqoto zino ha noqoto maalkii oo si qaab daran lagu kasbada ha noqoto tiri boqolaal iyo kumanaan shay oo naftu jeceshahay isla markaasna diintii ka soo horjeeda waxaa kaloo lagu oqoodaa shahawaadka waa wax qofku aqoon u leeyahay waxaan inay xaaraan yihiin waa og yahay laakiin naftiyan laga ilaali karin iyadiyaa rabta inay zinadu xaaraan tahay waa og yahay laakiin indhuhu isku qabanaa hore u gala maalkan inaan dad la dulmin inaan dad la dilin inaan qof la caayin inaan qof la xaman waxaanoo dhan muxaramaadka ah qofku waa og yahay laakiin naftiyaa rabta marka waxyaabaha oo shahawaadka la yiraa waa waxyaabo naftu jeceshahay qofku aqoon u leeyahay waxaan inay xaaraan yihiin isla markaasna aysan naftu ka joogsanayn intaas waxaa baakadkaas isku la jira kumanaan ama wax aan tirsi lahayn oo dembiyada la gala ah hal qayb halkaas isugu tagtaa qayb waxaa la yidhaha shubuhaadku waxay tahay wax la xiriira xagga diinta kana yimaada fakarka iyo maskaxda virus maskaxda gala oo sida kombiyuutarka haddii virus kaa galoo kale kharibaya wixii oo dhan waa virus xagga maskaxda la xiriira oo markuu qofka fakarkiisu qalloocmo oo fakarkiisu u leexdo waxaa imaanaa diin xumo waxaa imaanaa gaalnimo waxaa imaanaa bidco waxaa imaanaa boqolaal problem kulligoodna waxay ay ka yimaadiin oo ay ka soo burqanayaan xagga maskaxda waxayna ku salaysan yihiin jaahilnimo qofki wuxuu u maleeyaa waxaan inay sax yihiin markaasuu galaa ama ha noqoto gaalnimo weyn ama ha noqoto gaalnimada yar ama ha noqoto bidcooyinka wax alla waxa firqooyin jira oo jajabay oo islaamka ku abtirsada
kulligood halkaasa problemku uga yimi virus oo xagga maskaxda ku dhaca oo la yidhaah shubuhaad oo ku salaysan jaahilnimo iyo jahli kuna dhaca diinta kuwaas waxaa la yidhaah shubuhaad kuwii horena waxaa la yidhaah shahawaad ilaahay markuu adduunka abuuray wuxuu ka dhigay daar laysku imtixaano oo qof walba uu la mid yahay qof jaamacad ka baxayo ama iskool ka baxayo oo imtixaan u fariistay imtixaanka intaad ku jirto warqadaada waxaad rabtaad ku qori kartaa inta imtixaanka aad u fadhido miiska iyo qalinka aad miiska iyo kursiga fadhido warqadaada waxaad rabtaad ku qori kartaa laakiin warqadda haddaad dhiibto waxaad sugay waxa waaye waad baastay iyo waad dhacday adduunkan marka waxaa laga dhigay adigoo galaaska imtixaanka fadhiya oo warqaddii buuxinaya su'aalihii lagaa rabay waxaad rabto waad tirtiri kartaa markaad qaldanto waxaad rabtana waad sixi kartaa laakiin hadhowbayto markaad dhimato waxay u dhigan tahay warqadihii waa dhiibtay mar haddaad warqadaha dhiibto waxaad sugaya in imtixaanka laguu soo dhajiyo inaad baastay iyo inaad dhacday ilaahay ha nagu daro kuwa baasa marka adduunyada dhan sidaasaa laga dhigay si marka ay u kala caddaadaan qofka runlowga ah iyo qofka beenaalaha ah si ay u kala caddaadaan qofka mu'minka ah iyo midka munaafiqa ah si ay u kala caddaadaan qofka saalixa ah oo toosan iyo qofka taalixa ah oo faasidka fasahaaday oo hallaabay oo xumaaday si ay u kala caddaadaan waddadan qurxoonna dadku aysan u wada qaadin ayaa waxaa la dhigay waddadii lagu gaarayey aakhiro intaan la tegin waddadii la marayay ayaa waxaa la dhigay waxyaabo badan oo caqabaad ah oo qofka celiya oo qofka xayira qofkii adkaysta oo meeshaas jiira oo si fiican waddada ugu socdana jannadii u tegaa qofkii sahlada oo ka jireeya waddadana oo yidhaa anigu dhibkaan ma mari karo intaasoo isbaaro iyo intaasoo shay oo qofka celiya la dhigaa inaad salaadda wakhtigeeda ku tukato qaboobaha aad aragto u kacdo run aad sheegto inaad xaaraanta iska ilaalido iyadoo dadkii ay lacagtii ay iska laba canlaynayaan oo ka dhargaayaan inaad shahawaadkii aad naftaada ka ceshato indhahaaga inay qunful iyo furo kuu leeyihiin markaad magaalada maraydo carabkaagu inuu qunful iyo furo kuu leeyahay ood maantao dhan celcelido qofaad jeceshahay iyo qofaad necab tahayba aad wanaag kaliya inaad kula dhaqanto ay qasab kugu tahay waa arrin adag qof ilaali karana uu yar yahay qofkii marka adkaysta oo yidhaahda inta aan warqadda imtixaanka ka dhiibaayo xataa ataahu lyaqiin qofkan inta imtixaanka ka dhiibaayo warqaddiisa waan adkaysanaa qofkii yidhaana wuxuu noqonaa qof jannada mutaystay qofkii yidhaa dhibkaasoo dhan anigu mari maa war alla wixii aniga igu soo dhaca been iyo run waxaan dantayda anuu ku gaaraya waa iska sheegaa qofkaan rabo waa dhaca qofkaan rabo waa xada qofkaan rabo waan sira qofkaan rabo waa dila qofkaan rabo waa dhaafa maalka meeshaan anuu ka soo gaaro waayo waxaa iga xaaraana wixii aan gaari waayo dad waxaa jira maalka xaaraanta ka aho uu yahay midka iyagu qabsan waayaan oy heli waayaan nina qolo dacaayadaynaya wuxuu yidhi raggaasu waxay sadaqaystaan uu yidhi wixii ay waxba ka qaban waayaan tusaalahaan sokor ayaa ciidda uga dhex daadatay wax laga qaban kara lama arka lama kala sooci karo sokortii iyo ibcaadkii iyo ciiddii sadaqa ay yidhaahdeen wax laga qaban kara lama arko dad waxaa jira marka wixii asagu uu lacag uu gaari waayo xalaal iyo xaaraan inta raadiya hadduu gaari waayo kuwaasoo xaaraan u yaqaan laakiin hadduuba heli karaba xaaraan uma yaqaan qofkii marka sahlada oo waddada sahlan qaadana wuu lumaa qofkii adkaystaana wuu gudbaa
marka adduunyadii waxaa laga dhigay meel la rabo in lagu kala saaro qofka mu'minka ah iyo midkaan mu'minka ahayn, midka saalixa ah iyo midka faajirka ah, midka runta sheegaya iyo midka beenta sheegaya, midka mukhliska ah oo wixiisu daacad yihiin iyo midka munaafiqa ah. adduunyadii noocaasaa laga dhigay. alif laam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin. meel lagu kala baxo oo dadku ku kala caddaadaan ayaa adduunka ilaahay ka dhigay. laakiin ilaahay ummadda wuxuu ugu naxariistay ummadda nebi maxamed in number 1 uu u sheegay waxyaabaha khatarta ah oo fitnooyinka ah oo qofka duuflaali kara oo qofka leexi kara oo qofka khatarta geli kara. 1 waa loo sii sheegay si ay isaga ilaaliyaan oo ay uga gaashaantaan. tusaale ahaan kitaabka iyo sunnadu arrimahaasi cad ayay uga hadleen. waxyaabaha lagu fitnoobo oo qofku ku sumoobo oo khatarta oo adduunka yaallahuna farahii ka bateen. tusaale ahaan ummadaha qaar waxaa lagu fidneeyey raggooda haweenka, waxa ay ku dhammaadaan oy ku naar tagaan oy ku diin beelaan oy ku dadnimo beelaan waxaa laga dhigay haweenka. dadka qaar waxay ku fidnoobaan oo dhibaatada ugu foosha xunu ay ka soo raacdaa xagga saldanada, xagga xukunka. mar haddii qofka uu xukunka aado dadka qaara halkaas lagu maraa oo halkaas ku waasha oo halkaas ku dhar dhigta oo inuu isagu xukun helo wax walba u samayn kara. 1 milyan oo qofood ilaahu madaxa laga jaro inuu isagu halkaas gaaruu rabaa. dadka qaar waxay ku sumoobaan oo fidnadu uga dhacdaa xagga jaha, inuu sumcad helo oo la yaqaano oo meel walba laga sheego oo magaciisa lagu celceliyo ayuu rabaa. sidii nin laga sheegayey oo yidhi waxaan rabi lahaa in lay sheego lay oqoodo xataa hal la yidhaahdo hebel ahlunaarku ka mid yahay, laakiin waxaan rabaa in lay sheego inuu jah helo iyo sumcad. dadka qaar meesha ay ku dhintaan ay ku fidnoobaan waa maalka. fitnooyin waxaa jira fitnatu lmaxya waalmamaat, fitnatu lmasiix addajaal, waxaasoo dhan waa fitnooyin farihii ka batay. fitnatu cadaabi alqabri oo markii qofku dhinto kadiba, waxaasoo dhan waa fitnooyin isdaba socda oo farihii ka batay. nabigu marka wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi maadaama fitnooyinku farihii ka bateen, xadiid uu saxiixulmuslimka imaamu muslim uu ku soo wariyey oo uu soo tabinayay saxaabiga la yidhaha abu hurayra ayuu nabigu wuxuu ku yidhi baadiruu biاlacmaal fitanan ka qiطaci اlleyli اlmudlim yusbixu الrajulu mu'mina wayumsi kaafiran aw yumsi mu'mina wayusbixu kaafira yabiicu diinahu bicaradin min addunya. nabigu wuxuu yidhi war ka gaarsiiya oo boobsiiya oo ka fara qabsada acmaasha saalixa ah inta aysan dhicin fitnooyin la mid ah. tusaale ahaan habeennada madow aadka u madow oon dayax jirin oo daruuro jirto oo roob jiro hadduu rabo oo isha farta haddii lagaa gelinayo aadan waxba u jeedin. fitnooyin noocaasoo kale oo qofku xaq iyo baadil uusan kala gara karin, samaan iyo xumaan uusan kala gara karin, oo waxa dhan ay isku darsamayaan. taas maxaa ka dhalanaa qofkii inuu waqtina muslin ahaa dhow oo tusaalaan subaxii muslin oo ahay galabtiina gaalow noqona. gaalnimadaas ama ha noqoto gaalnimada weyn oo diinta dhan looga baxo ama ha noqoto gaalnimada yar. ama galabkii waa muslin subaxii wuxuu ku waabaraysanaa gaalnimo. ujeeddada lagama wado subax iyo galab, laakiin ujeeddada xadiisku waxay tahay siduu isku bedbedelayo. waqti dhowna muslin u ahaa, mar
aan fogeynna waxaad arkay qofkiiyo oo xerada ka baxay sabab isbeddelka intaas la eg maxaa keena yabiicu diinahu bicaradin min addunya wax yar oo adduunye ah oo aan macno lahayn ayuu diintiisa dhan ku gadanaa si uu adduunye u helo diintii uu ka takhallusaa sharaftii oo dhan uu ka takhallusaa akhlaaqdoo dhan uu ka takhallusaa oo uu faraha ka qaadaa si uu xoogaa u helo marka fitnada maalku sidaas awgeed fitno cusub oo xalay dhalay ah maahan waa fitno jiri jirtay fitnada maalka in lagu fitnoobo waa fitno soo jireen ah oo qadiim ah oo duq ah laakiin wakhtiga hadda aan joogno aaday u sii darnaatay aaday u sii khatarteedu u soo badatay sababtoo ah waagii hore waxa la haystayba wax iska koobanay ahaayeen dadka intooda badan waxaa laga yaabaa inay baadiye ku noolaayeen xoogaa ariya xoogaa geela inuu xoogaa haystay laakiin hadda adduunyadu saas maahan hadda waxaa laga hadlaa qofku inuu trilyoon ama trilyooniyaad lacaga yeelan kara malaayiin guryo iyo lacag iyo wax walba isugu jira sharikado waaweyn waxaa hadda isbedelay sida lagu helo maalka awal waxaa laga yaabaa siyaabo kooban in lagu heli jiray maalka laakiin haddeer xisaab ma leh qaababka maal lagu heli karaa wax kooban maahan xataa qofka inuu uma fududa qofka caadiga ah inuu ogaado xalaashii xaaraanta kumanaan wado iyo boqolaal kun oo wado oo lacag lagu hela maal lagu helaa jira waxaa isbedelay tabihii iyo xeeladihii dadka xoolahooda lagu cuni jiray waa isbedeleen haddeer waagii hore waxaa laga yaabaa qof xoogay qof xoola inta daf yari la cararay qof xoolo yar inta lagu ammaanaysta inkiray iyo waxyaabo yar yaroo saasay jiri jireen laakiin haddeer maaha hadda boqolaal farsamo iyo kumanaan farsamo oo adoo indhahaagu shanta yihiin oo lagaa saxiixaayo lagugu dhici karaa jira farsamooyinkii farihii ka bateen marka in maalka lagu fitnoobaaho marka wakhtigan aad ayay khatar u tahay marka fitnooyinkii waa badan yihiin laakiin maalku wuxuu uga jiraa waxyaabaha khatarta ah oo lagu fitnoobo meesha ugu sarreyda kuwa ugu sarreeya ayuu ka mid yahay sabab waxaad isweydiin kartaa muxuu uga bedelan yahay waxyaabaha kale oo saldanada iyo xagga xukunka oo qofku ku marqaamayo oo qofku ku khafiifayo xaggii jaaha iyo sumcaddii xaggii waxyaabihii kale oo fidnooyinkaha muxuu maalku gaaraho isaga far soo fiiqan ka dhigay oo uga bedelan yahay maalku wax weyn uga bedelan yahay oon kuwaasu lahayn maalka waa shay ilaahay uu ku abuuray oo duntiisaba uu ka dhigay waxa uu ka samaysan yahay wax dadka soo jiita oo magnad ah oo markaad waad aragteen birta shayga biraha kala qabta birta saas daad ugu dhaweydo isagaa soo jiidanaya maalku waaba saas waxaa ku jira alaab mar alle markaad aragto oo ku soo jiidana adigoo gacanta la aaday oo wixiiba iska aruursanaya inaad aragtaa dhici karto sidaas awgeed nafta bani aadamkana waxaa laga dhigay mid aad iyo aad maalka u jecel ilaahayna qur'aanka wuxuu nooga sheegay kariimka noogu sheegay in nafta markii la samaynayey oo la abuurayey lagu abuuray jacayl aan yarayn oo farihii ka batay oy u qabto maalka oo mar alle markay naftu aragto maalka carabku inta ka soo dhaco maaragtay dhareerku ka daadanayo qur-aanku wuxuu yidhi isagoo ilaahay arrintaas ka sheekaynaya isaga dadka yaqaan watuxibuuna almaala xubban jamman waxaad jeceshihiin maalka jacayl farihii ka batay aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay wainahu lixubbi alkhayri lashadiid insaanku xoola jacaylka meel adagu ka joogaa meel xun
oo daran ayuu maalka jacaylkiisu ka joogaa carabtu mid caraba isagoo ammaanaya maalka iyo wanaagga uu leeyahay gabayada laga tiriyey farahaasay ka bateen marka daraahimtii iyo shilimaantii waagii hore la isticmaali jiray nooc ka mid a asagoo tilmaamaha wuxuu yidhi wahiya allisaanu liman araada fasaaxatan wahiya asinaanu liman araada nizaala lacagtii uu ka sheekeynaya wuxuu yidhi ninkii raba inuu qof codkar ah oo fasiixan noqdo lacagtu ayadaa codkar ku ah haddii aad rabto inaad dad iska dhicidana warmihii iyo qalabkii iyo hubkii aad isticmaali lahayd iyadaa kuu ah wuxuu ka wadaa iyadaa kuu hadle haddaad tahay qofaan aan warba aqoon laakiin aad lacag haysato sida laguu ammaanayo iyo qofka khayrka iyo xikmadda kaa dureerta iyo sidaad aftahan u tahay sidaad fasiix u tahay waa laga yaabaa lacagtaasa hadle maahan adiga maaha waxaa hadlaa maalku bani aadamka qofka insaanka ah waxa uu adduunka intuu joogo uu raadiyo waxyaabaha ugu khatarsan oo ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay haddii uu helana ay ku adag tahay inuu ka baxo raadinta iyo jacaylku xadkii ka baxeen hadduu helana inay dhaafaan waa ku adagta ilaahay arrintaas asoo ka sheekeynaya wuxuu yidhi qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbi idan laamsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuura ilaah wuxuu yidhi haddii qasnadaha ilaahay ama furayaasha iyo khasaa'inta ilaahay oo raxmadda ilaahay ka buuxdo haddii adinka laydiin dhiibi lahaa ood gacanta ku dhigi lahaydeen waxaa dhici lahaayuu leeyahay ilaahay inaad haysatiin oo aad tidhaahdeen yousan shilin bixin waa la tashiilaa iyaan waxba naga bixin sabab insaanka ayaaba noociisuba wuxuu yahay qatuurka waxa waaye qof gacan adag oon waxba ka baxayn waxa ilaahay adduunkan uu nicmo keenay oo maal keenay oo wax nool oo dhan ilaahay uu siinayo haddii dad loo dhiibi lahaa raxmaddaas ilaahay khasnadaha ay ku jirto waxaa dhici lahayd inaan koob laga cabin shaaha waad aragteen nafta weliba insaanku waxay jeceshahay in loo badiyo oo loo siyaadiyo maalka oo xataa kuma filna inuu 1 milyan helo inuu 2 milyan helo inuu 3 milyan helo markaasaaba abitaydku u furmaa oo calooshu u furantaa oo uu isqaras bixiyaa oo uu rabaa in lagu soo daraged nabigu asagoo arrintaas ka sheekeynaya xadiis bukhaari iyo muslimku wariyey wuxuu ku yidhi xadiisu anas fi saxiixayn low kaana libni aadama waadiyaani min maal labtaqaa waadiyan ثaaliثa walaa yamla'u jawfa bni aadama ila الturaab wayatuubu اllahu calى man taab nabigu wuxuu yidhi laba tog oo waaweyn biyo marannada waaweyn oo buuxa oo tusaalahan maal ah dahab laga buuxiyey ama lacagta lays raseeyey haddii qofka la siiyo trilyonaad haddii labadaas waadi la siiyo laba oo intaasoo maal ah oo ka buuxdo adaa leh la yidhaa wuxuu dhihi lahaayuu yidhi mid saddexaadna hala iigu soo daro intaanu ima deeqdo mid kalena hala iigu daro dhihi lahaayuu yidhi nabigu qofka tusaalahan calooshiisa iyo gudihiisa wax buuxi kara nebigu ma jiraanuu yidhi oo aan ahayn inta dhinto oo qabri la geliyo calooshiisa ciidda qabrigu inay buuxido maahane wax kale oo uu ku baahi beelayahu ma jirto siduu u jecel yahay maalka soo socuu leeyahy nebiyullaahi aadam waad aragteen oo jannada la yidhi fakulaa minhaa ragadan xaysu shi'tuma wax walba loo banneeyey laakiin lagu yidhi walaa taqrabaa haadihi shajara ayadiiaa ka faka weyday ayadiian uu ku sumoobay oo dhibaatadu ka soo gaartay
marka fidnadan maalka mid sahlan maahan dadku waa ku dhibtoodaan maalka raadintiisa waxaad arkee qofku ilmihiisa iyo xaaskiisa uga tagaa dhulowsan weligiis aqoon u aadaa luqadooda uusan aqoon dhaqan aqoon rafaad badanuu maraa waa loo xiraa qabow iyo kulaylow dhex maraa raadintiisa marka xanuun fara badan ayuu u mara waana adkaysanaa kow gaajo iyo oon qabow iyo kulayl oo u adkaysanaa sidaas siduu ugu jiro oo lacagtii u soo aruurinayo oo uusan marnaba nasan uusan raaxaysan ayaa haddana markuu xoogaa helo waxaa dhibaata ka imaanaya bixintiisii waxaa laga yaabaa maalkii marka sidaas uu ugu dhibtooday oo intaasoo beena iyo intaasoo dhaar ah intaasoo goor ku xila furay ku xila dalaaqay oo intaasoo goor uu ku diinbeelay intaasoo goor uu ku adduunyo saagay oo rafaadka uu kala kulmay waxaa laga yaabaa intuusan asagu inta fariisto oo saldhigto intuusan koob shaaha ka cabin in loo keeno dhimashadii oo body baskii waa kana la yidhaah wixii asagu uu intaas ku soo tiiriya tacabeelay dadan hal habeen u soo jeedin oon u soo dhafrin inay iska yeeshaan waxaa dhici karta maalkii uu rafaadkaas ku tabcay inuu meel xun oo aan astaahilin ku bixiyo marka fidnadan oo maalka qur'aanku siyaabo kala duwan uga hadlay aaduna u bayaaniyey ilaahay wuxuu leeyahay jalla wacala waclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna wa ana allaha cindahu ajrun cadiim nabigu marka wuxuu dadka uga digay shabaqa khatarta ah iyo fitnadaas maalka ah oo qofku hadduu arko uu dalaq leeyahay oo aan si sahlan looga bixi karin inuu qofku iska ilaaliyo marka diintiisii iyo alla ka cabsigiisii khataray gelayaan nabigu wuxuu yidhi xadiid uu imaam axmed iyo tirmidi ay soo warinayaan ayuu nabigu wuxuu ku yidhi oo isnaadkiisu saxiix yahay oo sax ah maa di'baani jaa'icaani ursila fii ghanamin biafsada laha min xirsi almar cala almaali waasharafi lidiini nabigu wuxuu yidhi dadka inuu fahamsiiyo khatarta taagan asagoo raba ayuu tusaale uu dadka ku garansiinayo ayuu u sheegay wuxuu yidhi laba di'bi waa xayawaanka xoolaha dhammeeya ama dadka caadiga dhurwaayay yaqaanin laba dhurwaay ama laba weer ama laba shabeel ama libaaxo gaajoon haddii tusaale ahaan xoolo lagu sii daayo sida ay u baabi'inayaan oy u kharibayaan oy dukun daakun uga dhigayaan waxaa ka daranuu nebigu leeyahay sida ay diinta u burburiyaan laba arrimood oo kale ah xoolo raadinta iyo sharaf raadinta qofka diintiisa labadaasu siday u burburi karaan qofka diintiisa waxay ka khatarsan yihiin sida labadaas di'bi ama labadaas xayawaan oo gaajoon oo ayaan aan calooshooda wax ku dhicin oo xoolo aan lala joogin helay sida ay u baabi'iyaan kuwaasu ka badan qofka diintiisa waxaa u burburiya xoolo raadintaas iyo siduu qofku ugu dadaalayo iyo qofku tusaale ahaan sharafta qofku tusaale ahaan markuu rabo saldanada iyo xukunka haddii ay arrintaanu mar qofka gasho ay labadaas midkood galo waa ka takhallusayaan diintii xayawaanka waa taqaaniin qaarkood waxaa jira markay helaan ariga iyo waxa la midkaa iyadoo uu ku filnaa bahalkan inuu hal neef cuno kuwo waxaa jira aan hal neef ku kaaftoomin
marka hore inta konton dilo konton oo dhulka dhigaa markuu konton disho kadib hal xabo cuna laba xabo marka gaajoon oo xoolihii lagu soo daayay hadday sidaas ula dhaqmaan waxaa ka khatarsan oo nabigu leeyahay in lagu sii daayo qofka diintiisii xoolihii oo suxun ku raadinayo iyo sharaf raadin haddii labadaas lagu daayo diintii iyaga gam ka siinayaan nabigu wuxuu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi sida ku xusan xadiid uu tirmidi soo warinayo oo ku xusan tirmidiga oo soo warinayo kacb ibn ciyaad saxaabiga la yidhaah nabiga wuxuu yidhi ninkaas saxaabiga wuxuu yidhi samictu nabiy sal alla alayh wasalam yaquul ina likulli ummatin fitnatan وفتنة أمتي المال أي إن فتنة أمتي المال دي الرمنا وحل ديكرا وفتنة أمتي المال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نينكا وحشيغا كعب بن عياض ليرا إن يري النبي كان مقلا أوله أمت كستبا ميل لغا غارو ولغا هلغادو وأي كدمتو أيا جرته ummadayda meesha fidnadeedu ay taal oo khatarta ku uhu waa maalka meesha tusaalahan ummadda nabi maxamed maalkaas uu yahay meesha ay ku baaba'ay karto oo khatartu ka soo gaari karto nabigu wuxuu kaloo axaadiis kale ku sheegay fidnadii koowaad oo reer bani israa'iil la degtay oo ku diinbeeleen inay ahayd fitnatu nisaa marka qolaba meel ayaa laga gaaraa marka maalku sidaas ayuu khatar u yahay fitnadaas intaas nabigu kuma siman oo in fitnada guud oo ummadda haysa kartaa oo ay tahay maalka kaliya kuma uusan ekaysan ee weliba cabsi weyn oo ka muujiyey in meeshaas lagu baaba'o nabigu wuxuu yidhi isagoo ka digaya in inta maalkaasu yimaad oo lagu daato oo laga daba dhaco oo raadintiisa lagu aqsoobo inay keento dadku inay ku diinbeelaan dadku ay ku colloobaan dadku colaad ay wada isku dhex marto oo ay sidaas ku halaagsamaan ayuu nabigu wuxuu yidhi asagoo arrintaas ka digaya oo caddaynaya wuxuu yidhi wallah lalfaqra akhshaa calaykum ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أخرجه البخاري حديث كان بخاري وريي نبي وحو يري إلهي كنت أرتي إن أنا إذا كجا عبسنين فقري ummaddaanu gaajo u baabi'ime laakiin waxaan idinkaga cabsanaha uu yidhi in adduunyadii inta idiin furanto ay sidii ummadihii horeo kale loogu furay adduunyada ay u heleen inaad u heshiin hadhowbaytana ayadaas lagu tartamo sidaas awgeedna lagu baaba'o markii adduunye raadiskaas uu yimaado oo laysherdiyo oo laysku dhaco oo layska hor yimaado oo nin walbaaba ninkii kale uu waddada uga soo horbaxo oo colaad iyo dagaal iyo dhibaato laga dhammaan waayo dagaalladu ay joogto iska noqdaan wuxuu yidhi waxaan ka cabsanaa marka inay arrintaasu idin halaagto maalku waa wax khatar ah sidaas awgeed hadduu qofku helana waxyaabaha ka dhasha waxaa ka mid a qofku inuu meeluu joogo oqon waayo inuu iscajabiyo inuu laga yaabo inuu u maleeyo in dhiiggiisu dahab ka samaysan yahay isaga uusan dadkan kale la mid ahayn dhiiggoodu ka samaysan yahay ciidda iyo biraha iyo waxaan qiimo lahayn inuu qofku iscajabiyo oo meeluu istaaga u waayo sidaasna uu ku dhinto tusaale ahaan ilaahay isagoo ka hadlaya waxyaabaha qofku uu ku dhinto diin ahaan
oo qofku ku fasahaado oo ku gaaloobo ayuu wuxuu ilaahay yidhi kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaghnaa waxaa keena qofku inuu xadka ka baxo oo kibro sayn yeesho meel la istaajiye la waayo qofku arko oo ku duufo oo qofku rabo dilo qofku rabo dhaco oo diin iyo xaq aysan marayn wuxuu yeelaya jirin waxaa keeno ilaahay leeyahay an ra'aahu istaghnaa inuu isku arko inuu deeqtoomay hadduu marka uu qofka tusaale ahaan waa aragteen hadduu xoolo badan helo waxaa laga yaabaa inuu dhagabeelo uusan xaq iyo wanaag gelin oo iscajabiyo is yidhaahdo dadku aday kuu baahan yihiin sida ilaahay loogu baahan yahay oo kale adiga lagu baahan yahay dadku aday ku hoos joogaan inuu is yidhaahdo istiqnahaasu maal kaliya maahan wax kasta oo qofku uu is yiraa waad ka faraq qabsatay waxay keeni karaan qofku in uu ku dhinto ha noqoto aqoon ha noqoto jaaha iyo sharafta iyo sumcadda ha noqoto dhaqaalaha qofku mar hadduu heerkaas isla gaaro dhib badanay u keeni kartaa haddii maalka la helo dhibaatadaas way ka dhalan kartaa haddii la waayana waa laba afle labada dhinacba meeluu ku fiican yahay lama arko haddii la waayana sidoo kale dhibaatou dhali karaa wuxuu dhali karaa qofku markuu faqri noqdo oo faqri faragoysa gaar ahaan uu ku dhaco inuu beenlow noqdo inuu khaa'in noqdo inuu diinta gato inuu ka daba dhaco wax alla wuxuu is yiraa meeshaan qadaad ka heli kartaa in wax celiya la waayo ayaduna waa dhibaato kale marka maadaama maalku uu khatartaas leeyahay diintu si qoto dheer ayay uga hadashay oo tusaalaan waxaa lagu daray 5 arrimood oo ugu waaweyn oo diinta dhamuba ay u timid inay ayaga difaacdo ilaalido tusaalaan waa diinta maalka waxaa ku jira nafta diinta dhan waxay u shaqaynee kuwaas in la ilaaliyo nafta bani aadamka in la ilaaliyo diinta ugu horeyda naftaa ku xigta tusaale ahaan maalkii caqligii waxyaabaha la ilaaliyo ugu waaweyn oo diinta dhan ay u shaqaydo ayaa maalkii lagu daray markaasii diintu waxay caddayday dhinac walba oo maalka xiriir lagala yeelan karo ha noqoto sida lagu helo ha noqoto sida loo haysto ha noqoto sida loo bixiyo wax walba oo la xiriira diintu si fiican ayay uga hadashay maalku wuxuu lafdhabar u yahay iyo halbowle nolosha qofku wuxuu u kaalmaystaa wax alla wixii dan ah oo uu leeyahay inuu ku gaaro wax alla wixii nafci iyo maslaxad ah qofku inuu ku gaaro ama ha noqoto inuu naftiisa danaheedii oo naftiisa nafaqeeyo oo naftiisa wax siiyo ha noqoto qoyskiisii inuu wax siiyo ha noqoto inuu dadkii kale iyo wixii ku xeernaa inuu wax u taro ha noqoto inuu uga kaaftoomo inuu baryo tago oo uu dadkii gacanta u hoorsado ha noqoto inuu wax walba oo khayra iyo diin fidin iyo wax walba oo wanaaga inuu u adeegsado ha noqoto oo aakhiradiisa anfacaya maalku marka waa dhinacaas marka laga fiiriyana wuxuu u yahay halbowle noloshoo dhan marka qofku marka laba nooc ayuu mid noqon karaa maalku dhinac waa sun qofku ku dhimo karo helidiisa iyo weyntiisaba dhinacna waa shay uu qofku uu diintiisii iyo dadnimadiisii ku xafido karo qofkii markuu maalka helo tusaale ahaan ilaaliya laba arrimood wuxuu noqonaa nafcigii iyo wanaaggii iyo wax walboo fiicnaa oo maalku lahaana qof helayuu noqonaa isla markaasna wuxuu noqonaa qof ka badbaaday wax alla wixii dhibaato iyo sun ah oo ku jiray qofkii labadaas arrimood laga waayaana wuxuu noqonaa qof sun qooshtay oo ku dhintay qofka marka waxay yidhaahdeen hadduu ilaaliyo xaqa ilaahay
iyo xaqa addoommadiisa hadduu ilaaliyo markuu maalka helo oo ka dhiga wax uu u kaalmaysto inuu ilaahay u dhowaado inuu ilaahay adeeco inuu ilaahay u dhagan nuglaado mid u adeegsada inuu khayrka badsado qof sidaas u isticmaala hadduu noqdo khayrkaas miraha uu dhalaa lacagta maalkaasu miraha uu dhalaa wuxuu noqonaa qofkaasu inuu noqdo qof adduun iyo aakhiraba liibaanay haddii laakiin uu noqdo qof intaas aan ilaalinna wuxuu noqonaa qof khasaaray ilaahay naguma daro maalku marka maadaama uu labada shay oo kala duwan loo adeegsan karo maalku asagu lafahaantiisu maal ahaan shay caayan oo in laga cararo mudan maahan waa loo baahan yahay nolosha asagay ku kala socotaa shay asagu marka iska caayan mar walba maahan inaad hesho maalka inaad milkido inaad ku intifaacdo inaad ku raaxaysato wax diintu diidan tahay maahan oo macnuhu maahan mar haddaad muslim noqotay mar haddaad mu'min noqotay faqri faragoys ah oon kaa harin oo afkii gacanta aad isla weydo waa inuu ku hayo sidaasa janno lagu gala maahan inaad xoolo haysato oo qofka dadka ugu sharafta badan qofka dadka ugu fiican inaad ahaato ayay diintu rabtaa laakiin waxa caayan oo la dhaliilo oo aan fiicnayno waa sida xun oo qofku uu maalka ku raadinayo uu ku soo gelayo ama waa sida xun uu ula dhaqmayo markuu maalku gacantiisa soo galo sidaas awgeed in loo fahmo maahan dadka muslimiinta inay noqdaan dad faqri ah dad wax ma haysataa dad iska xabkaysta oo waxay haystaan la arkin inay noocaas noqdaan lama rabo ee wuxuu islaamku ku dadaalaa inay dadka muslimiintahu noqdaan dad ayagu naftoodana wax tara inta kalena wax ka siiya oo ka soora sidaas awgeed islaamku lama uusan dagaalin in maal la helo islaamku ma uusan diidin in maal la kasbado islaamku ma uusan diidin in la badsado sababtoo ah noloshii oo dhan ayuu lafdhabar u yahay adduun iyo aakhira u baahan wuxuu islaamku dadka ku boorinaa inay ku dadaalaan inay helaan maalka qur'aanka ilaahay wuxuu ku yidhi faidaa qudiyat الصalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah marka salaadu dhammaato waxaa la leeyahay dadkii raadsada fadligii ilaahay iyo khayrkii iyo maalkii goobta ha fariisanina oo markaad shaqadan ka baxdo aakhiro shaqadan adduunyadana gal su-aal waxaa noqon karta sideen anigu isku fahmi karaa siduu qofku ku gara karaa inuu yahay qof maalka ku fidnoobay iyo inuusan ahayn calaamad ma jirtaa halbeeg ama cabir intuu qofku isku fiiriyo uu ogaa karo inuu maalka ku fidnoobay iyo in kale si kasta oo qofku maalka ula dhaqmaahu ma fitna in risqigii la goobto oo qofku uu noqdo qof xoog furan qof maskax furan oo yaqaan sida dhaqaalaha loo tabco oo loo sameeyo ma waxay ka mid tahay fitnada maalka in qofku dhar fiican xirto baabuur qurxoon uu gato guri qurxoon uu dego ma waxay ka mid tahay fitnada maxay tahay cabirka aan anigu isku ogaa karo inaan ku fidnoobay iyo inaanan ku fidnoobin jawaabtu waxay tahay laba shay bis iska fiiri haddii qofku maalka markuu raadinayo uu hubsado waddada uu ku soo galaa inuu xalaal yahay meel alla meeshuu ku bixinayo iyo wixii la rabay inuu bixiyana wax ilaahay raalli ka yahay ay yihiin oo tusaale ahaan maalkii meel la rabay inuu ku dhiibo sida sakadii oo kale qof aan haysanayn oo ku bixinayo meelihii laga rabay meel kastuu ku bixinaana ay tahay meel ilaahay raalli ka yahay labadaas hadduu qofku ilaaliyo islaamku waa raba inaad in alle intaad maal heli karto aad hesho
haddii laakiin labadaas mid kaa jabo waxaad tahay qof fidnoobay maalkii waxaad ku raadiday waddo aan saxsanayn inaad ku hesho ama sidaad ku heshay way fiicneed laakiin bixintiisaa qaldaneed oo wixii lagaa rabay inaad bixido oo qoyskaagii ilmahaagii waxyaabihii zakadii waajibaadkii meeshii lagaa rabay kuma aada bixin ama waad dhiibi diiday ama waad dhiibtay oo meel xaaraanahaad ku bixiday markaasna waad ku fidnowday oo dhibaataad ka kororsatay maalka aroorintiisa qofka noocaas hadduu ku fidnoobo oo labadaas midkood ka jabo wuxuu noqonaa qof maalku uu gacantiisa ku jiro oo qalbigiisa uu ku jiro ee uusan gacantiisa ku jirin qofka fiican oon maalka ku fidnoobin culimmadu waxay yidhaahdeen maalku gacantiisuu ku jiraa isagaa xukuma isagaa leh isagaa xukuma qofka ku fidnooba oo ku sumoobana maalkaa iska leh asagu shaqaale u yahay iyo addoon labada dhinac midaad un tahay nabigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiid bukhaarigu uu wariyey tacisa cabdu diinaar والدرهم والقطيفة والخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى وحا هلاك سمي وإنكار كل عضي أوليته وخساري أدونك درهم كي دينار حولها إسكالة قفك حوله ليهين مالك أسقله أسقل مركا وحوشق يا مالك إسكالة كاسا إنكار كل عضي ورنبك وهلاك سمي ومركو قلبك كاغا جيرو او مال الله مالكاد aragtana aad ka daba ordaydo ama meel kasta oo qaldan aad isaga bixinaydo asaga kule aduu adoonata qofka fiicanuna maalka asaga leh oo maalka gacanta ku jira oo asaga awood leh waad aragteen nin sheekha oo culimada kamid ah Soomaaliyeed Allah yarxam waa dhintay ayaa hadda koor waxa la yiri dhul baadiye ah oo nin sheekhoon aqaan u ahaa dhul baadiyaha dadka tolkiisu degan yihiin oo aad muddo dheer ayuu magaalada Muqdisho ku noolaa dhulkii markuu tagay dadkii baadiyaha iyo ku noolaa iyo magaalooyinka wacdiyay oo diintii u sheegay oo zakada bixiya ku yiri nin ragii kamida ayaa isagoo hurweyta ah oo sheekhi hurwaayay ayuu neefaf geel ah u dhiibay zako indhaha inta isku qabtay yaan taariikhu ka raacin iyo magac xumo ilaahay ugu uusan dhawaamayn kolba dhowr neef oo xogaa dhiibay geeli uu dhiibay xoogay waa la isku keenay xoolihii meela lagu xiray inta la soo aruurinayo xogaa daqiiqada markuu soo warwareegay ayuu wuxuu u yimid qaalin geel ah oo isagu yaqaan oo ina heblood ah oo xarig inta lagu xiray cabaadeyda hashiyo meeshaas cabaadeyda ina heblood uu yaqaan uu adkaysan waay midiyo inta la baxay tooray iska soo gooyay oo xarigii ka jaray uu yiri hasha ina heblood ah intay xarigaas ka cabaadi lahayd anigu aan jahannamo ka cabaado yiri maxna uu adkaysan waay hashiisii uu yaqaan wuxuu yiri meeshaas intay ka qaylin lahayd maanta oo dhan oo cabaadkeeda iyo jibaadkeeda uu yeeri lahay anigu aan jahannamo ka cabaado yiri ninkaas ma xoolaha ma asaga lahay mise xoolaha asaga lahaa qofka marka qalbigiisa ay xooluhu degaan oo iyagu yeeshaan saasuu noqonaa muddo waqtigii inuu dhammaaday waxaa harsanaa qaabab ay ka muuqan karto ama uu qofku ku fahmi karo iyo tusaalayaal cadcad goorta qofku uu maalka ku fidnoobay waxaa harsan sida looga gaashaanto qofku inuu maalka ku fidnoobo oo waxaa jira waxyaabo fariin u ah qofka tusaalayaalkii quraanku uu arintaas ka sheegay iyo waxyaabahaas dhiman laakiin insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan fursad kale u helno intaas ayaan ku soo koobaa wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى
sheekha waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim innagana uu naga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah